ruushka waxa uu sheegay in laga yaabo in uu xiro dhuumaha gaaska ugu weyn ee taga Jarmalka haddii reer galbeedka ay ku dhaqaaqaan mamnuucida shidaalka ruushka. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Ruushka Alexander Novak ayaa sheegay in diidmada saliidda ruushka ay u horseedi doonto cawaaqib xumo suuqa caalamiga ah, taasoo keenaysa qiimihiisa in ka badan laab ilaa $300 foostadiiba. Mareykanka waxa uu sahminaya mamnuucista suurtagalka ah ee xulfada si ay ugu ciqaabto ruushka duulaanka Ukraine, laakiin Jarmalka iyo Netherlands ayaa diiday qorshaha. Isniintii Midowga Yurub waxa uu ruushka ka helaa 40% gaasta iyo 30% saliidda, mana laha wax fudud oo lagu bedelo haddii saadka la carqaladeeyo. Khudbad uu ka jeediyay telefishinka qaranka Ruushka ayuu Mr. Novak ku sheegay in aanay suurtagal ahayn in si degdeg ah loo helo beddelka saliidda ruushka ee suuqa Yurub. Hogaamiyaha Ukraine ayaa ku eedeeyay Moscow inay beegsatay dadka rayidka ah, isaga oo sheegay in Kiev ay ciqaabi doonto qof kasta oo geystay xadgudubyo. Madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in Ukraine aysan ka cafin doonin ruushka dhammaan khasaarihii iyo dhibkii ka soo gaaray dagaalka uu bilaabay, isagoo ku eedeeyay ciidamada ruushka inay beegsadeen dad rayid ah. Zelensky wuxuu faalooyinka ka bixiyay ciwaan ku saabsan cafiska Axadda, maalin diimeed oo gaar ah, taas oo marka loo eego dhaqanka kaniisadaha Orthodoxiska ee bari dadku waxay weydiistaan cafis. Ma cafin doono, ma iloobi doono, waxaan ciqaabi doonaa cid walba oo xadgudub ka geysata dagaalkan dhulkeena, ayuu yiri. Ma jiri doonto meel xasiloon oo dhulkan ah marka laga reebo qabriga. Zelensky ayaa ku yiri khudbadiisa maanta. Qoys ayaa lagu dilay Irbin, nin, naag iyo 2 carruur ah ayaa wadada lagu dilay isku mar sida goob toogasho ah oo kale. Qoyska ayaa isku dayay inay magaalada ka baxaan si ay u badbaadaan, ayuu yiri madaxweynaha Ukraine. Duqa magaalada Irbin oo ah magaalo yar oo ka baxsan caasimadda Kiev ayaa ku tilmaanay inay arkeen 2 qof oo waaweyn iyo 2 carruur ah oo lagu dilay hortooda markii uu madfac ku dhacay. Zelensky waxa kale oo uu dhambaareeyay waxa uu ku tilmaamay aamusnaanta dowladaha reer galbeedka ee ku guuldareystay inay ka hadlaan duulaanka oo hadda ku jira maalintii 12aad. Ugu yaraan 364 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay, 759 kalena way ku dhaawacmeen gudaha Ukraine tan iyo markii uu Ruushku bilaabay dagaalka 24 Febraayo sida laga soo xigtay tirakoobyada qaramada midoobay, iyadoo dhimashada dhabta ah laga cabsi qaba inay intaas ka badato. Moscow waxa ay sheegtay in ay beegsanayaan oo kaliya kaabayaasha militariga, iyada oo ku adkeysanaysa in ujeedadeedu ay tahay in ay difaacdo bulshooyinka ku hadla afka Ruushka, iyada oo loo marayo dagaal si ay dariskii hore ee Ruushka u noqdo dhexdhexaad oo aanu mar dambe u hanjabin Ruushka. Ukraine iyo dalalka reer galbeedka ayaa arrintan ku tilmaamay mid aan sal iyo raad toona lahayn oo duulaanka lagu soo qaaday. Xulafada reer galbeedka ee Kiev ayaa ku soo rogay cunaqabatayn aan horey loo arag oo ka dhan ah ganacsiyada, bangiyada iyo bilyaneerada si ay u ceejiyaan dhaqaalaha Ruushka ayna cadaadis ugu saaraan Moscow inay joojiso weerarkeeda. Waxa ay sidoo kale ka digeen in tallaabo kale oo ciqaab ah oo ay ku jirto mamnuucida suurtagalka ee saliidda ruushka la soo rogi karo haddii Ruushka uu ku guuldareysto inuu bedelo qorshihiisa dagaal. laakiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa cunaqabataynta caalamiga ah la barbar dhigay ku dhawaaqis dagaal, wuxuuna ka digay in mowqifka Kiev uu su'aal gelinayo mustaqbalka qarnimada Ukraine. Zelensky ayaa ku celceliyay codsi ku saabsan ilaalinta shisheeye si ay ugu soo rogaan aag duulimaad ka caagan Ukraine, taasoo NATO ilaa hadda meesha ka saartay. Walaaca ay ka qabto talaabadan oo kale waxay horseedi doontaa dagaal aad u ballaaran. Dunida aad ayay u xoog badan tahay oo awoodda inay xirto cirkeena, Zelensky ayaa yiri Axaddii. Xulafada NATO ayaa ilaa hadda diiday baaqyada Ukraine ee ah in la joojiyo duulimaadyada, iyadoo senatarkii sare ee Mareykanka Marco Rubio oo Axaddii sheegay inay horseedi karto dagaal saddexaad oo caalami ah oo ka dhan ah Ruushka oo ku hubeysan hubka nukliyeerka. Putin wuxuu ku hanjabay cawaaqib xun iyo masiibo ma ahan oo kaliya Yurub laakiin sidoo kale adduunka oo dhan. Haddii aad duulimaad la'aan lagu soo rogo caasimadda Ukraine, ciidamada ayaa isku diyaarinaya weerarka la filayo inuu Ruushka ku qaado Kiev oo ay ku jiraan inay walxaha qarxa ku rakibaan buundada ugu dambeysa ee ciribtirka ah ee hortaagan ciidamada soo socda. Haddii ay isku dayaan inay ka gudbaan reer Ukraine, waxay qarxin doonaan buundada waxayna dejin doonaan taangiyada cadowga inta aan awoodno, ayuu yiri.
dagaalyahan oo magaciisa ku sheegay Kasper Axadii. Militariga Ukraine aad buu uga fiican yahay Ruushka, laakiin ciidamadeena xirfadleyda iyo mutadawiciinta ah waxay u dagaalamayaan si adag. Magaalada Kiev, mutadawiciinta ayaa safaf galay Sabtidii si ay ugu biiraan militariga. Reer galbeedka ayaa si weyn u taageeray Ukraine iyaga oo siinaya gargaar iyo shixnad hub ah, waxayna ku dhufteen Ruushka cunaqabateyn balaaran, balse ma jirto ciidamo NATO oo loo diray Ukraine. Ukraine waxa ay qorsheynaysaa inay abuurto guuto caalami ah oo dagaalyahano iskaa wax u qabso ah oo ka socda daraasiin dalal ah. In ka badan 20,000 oo qof ayaa si mutadawacnimo ah isu dhiibay, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba, inkastoo aysan caddayn tirada ku sugan Ukraine. In ka badan 1 milyan iyo bar oo qof ayaa ka tagay dalka, taas oo qaramada midoobay ay ugu yeertay dhibaatada qaxootiga ee Yurub ee sida xooliga ah u kordhaysa tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka.